بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله عن جعله ميل الجوكتان بعد فضلك إلهي وحكم يوناق إلهي اعتراض بدن بشي رمضان غالق أهيد إنام كجفو ولبا بشان أي تهي بشي دعاده بريادة قفك مسلم كإلهي وكأقبل جري mase og tahay inuu jiro magacyada ilaahay ka mid a oo la yidhaahda ismullaahi alacdam magaca ilaahay ee weyn ee qofkii ilaahay ku barya ama wax ku weydiista ilaahay uu siiyo tabaaraka wa tacaala waa xaqiiqa haddaad ilaahay ku barida magacan alla wuu aqbalaa mana soo celiyo ducadaas wuuna kaa ajiibaya ducada aan fiirino marka magaca ilaahay ee weyn waa kee marka koowaad waxaad ogaataan magacyada ilaahay oo dhan waa magacyo waaweyn walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay wuxuu leeyahay magacyo wanaagsan ku barya wuxuu alla leeyahay qul idcu allaha aw idcu araxmaana ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa ama waxaad ku baridaan allah ama waxaad ku baridaan raxmaan magac kasta ood ku baridaan waxaad ogaataan ilaahay wuxuu leeyahay magacyo wanaagsan buu leeyahay marka magac kasto ilaahay waa magac weyn magac kasto ilaahayna waa magac fiican laakiin waxaan isweydiinaynaa magaca si khaas ah nabigu uu u sheegay sallallahu alayhi wasallam in la yiraahdo ismullaahi alacdam ee ducada lagu aqbalo waa kee kaliya gacmaha inaad taagatid oo aad magacaas alla ku xustid ducadaada oo dhan waa la aqbalayaa danahaaga oo dhan waa la gudayaa kurbadaada oo dhan alla wuu faydayaa xawaa'ijtaada oo dhan alla wuu aqbalayaa ismiga magacaasi waa kee laba xadiid ayaan idiin sheegayaa oo labadaba waxaa ku jira magac uu nebigu yidhi sal allah alay slam waa ismullaahi alacdam labadaas magac ayuu ismullaahi alacdam kama baxsanee iyo ku dhaafin xadiidka hore xadiidka buraydata bnu xusayb xadiidkan waxaa wariyey الإمام ترمذي أبو داود ابن ماجه وحديث صحيحة وحويري نبي صلى الله عليه وسلم أيا وحوم مقلي من دعي سنية وضهي اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحاد كوي دي ستي الله magaciisa weyn ee haddii wax lagu baryo u ajiibo haddii wax lagu weydiistana uu siiyo alla tabaaraka wa tacaala magacan waa maxay marka magacan waxa weeye waa ducadan intaas weeye allaahumma innii ashhadu annaka anta allah ilaahayow waxaan qirayaa adigu inaad tahay allah inaad tahay laa ilaaha ilaa anta mid keliya ee asaga xaq lagu caabudo mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro al-axadu samad waxaa tahay midka keliga ah ee haddana samadka ee haddanaha asaga loo sheegto ee xawaa'ijta loo kor yeelo ee makhluuqaadka dhan ay ku tiirsan yihiin lam yalid walam yuulad ma lagu dhalin waxaa tahay allaha midka aan la dhalin asagana aan waxba dhalin ولم يكن له كفوا أحد كفء أو أدغما سيدا حاس أو كلنا عن لهين دعاء الله بعد وحوي وحوليه أنس بن مالك نبي كان لجوي صلى الله عليه وسلم نبا تكنيي مركاسو دعاء استنينكي أو حيري اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحكوي ديستي الله مجعي سوين هدي وحلقوي ديستو وصيو هدي اللقو بريانا وكأقبله وامحي دعاءنا وحوي اللهم إني أسألك إله وحنكوي ديستي بأن لك الحمد هرطا مهاب أوردن إني أذيك خصوناتي لا إله إلا أنت الله حق لو عابدون أذيك أهين مجرو المنان وحتى الله أصوح منيستا أو حقلديستا أو حبيحية بديع السماوات والأرض متك السماء يقولك أصو باللعبي يا أبوري يا ذا الجلال والإكرام
allaha weynanka iyo sharafta u saaxiib ah, allaha deeqda u saaxiibka ee deeqsiga ah. yaa xayu yaa qayuum, allaha xayiga aha nool ee qayuumka ahee makhluuqiisa u taagan mar kasta inuu ka aqbalo ducada iyo danahooda uu u gudo habeen iyo maalin, subax iyo galab, fiid iyo suxuur, saacad kaste, daqiiqad kaste, sakan kaste, xaalad kasta ku jirto allaha u taagan makhluuqiisa umuurtooda inuu gudo. labadan duco haddaad u fiirsataan magaca allah baa ku wada jira. walidaalika waxay culimmadu leeyihiin ismullaahi alacdam sida axaadiistani ay sheegayaan waa magaca allah. wuxuu qur'aanka ku yimid magaca allah ee ilaahay magaca u ah wuxuu ku yimid 2697 mar, asagoo allaahumma ana wuxuu ku yimid 5 mar. taas waa allah waay. marka ku dadaal allah ducada uu ku jiro inaad ku ducaysatid. ducada labaad waxaa ku jira yaa xayu yaa qayuum. xadiidkoo nabigu waxaa jira sal alla alay slam xasan oo uu leeyahay magaca ilaahay ee weyn wuxuu ku jiraa 3 suuradood, suuratu albaqara iyo suuratu aali cimraan iyo suuratu taaha. nabigu saas sal alla alay salam. suuratu maryama, suuratu baqara wuxuu kaga jiraa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum aayad ku sida. suuratu aali cimraanna wuxuu kaga jiraa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum waa bilowga suuradda. suuratu taahana wuxuu kaga jiraa wacanat alwujuuhu lilxayi alqayuum. markaad ducaysanaysid walaalle waxaad bishaan ramadaan ku dadaashaa ducadaada inaad mar walba ku dartid labadan duco. markay xaaja ku hayso, markay dan ku haysato, markay kurbo ku haysto, marka aad damac ku hayo, marka aad rabto inaad wax hesho, marka aad rabto ducadaada in la aqbalo. wax ka weyn alla ma jiro. labadan magac ku ducayso, ducadaada waa garanti in la aqbalaya. xaqiiqo weeye. midda hore waa maxay? waa ducada hore allah ay ku jirto oo ah allaahumma innii ashhadu annaka anta allah laa ilaaha ilaa ant alaxadu asamad alladii lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad. midda labaadna waa yaa xayu yaa qayuum ducaday ku jirto allahuma innii as'aluka bianna laka alxamd laa ilaaha ilaa anta almannaan badiicu asamaawaati waalard yaa da aljalaali waalikraam yaa xayu yaa qayuum. waxaan inaga dhan insha allah niyada ku dhisanaynaa oo niyadeenna aan ka buuxinaynaa inaan gacmaha taagano oo ducadeenna alla aqbalo oo labadan duca aan ku ducaysano. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu.